dowladdaadiina waa dhammaatay shirarkiina kolley weli waa qasan yihiin oo wax maartay hadda hirgelin ma jiraan doorashadii iyo isbedelkiina ma muuqdaan warniyow anigu waxaan kugula talin lahaa kiiskaan ha ku ceeboobin laba meeloodan marka kaa tusaaya mid waxa weeyaan dadka hadda oo eedu kaala dhaxayso waa dadkii bahalkii maxay ahayd maxamed siyaad barre oo markiina awoodna haystay yacni xukun adagna yacni haystay nimankii waxa weeyaan meesha ka saaray waay waa kuwee waa hawiye iyo daarood waay daarood waxaan u leeyahay waad ka dhalatay laakiin qolo kamid ahaa tahay labadii qolooyinkii kale oo maaragtay bahalkii daarood nimankan majeerteen iyo nimankan ogaadeenay ahaayeen majeerteen waxa weeyaan SSDF ay lahaayeen iyo cabdullaahi yuusuf hawiyana UNC iyo caydiiday lahaayeen ogaadeenna wuxuu lahaa nimankii looratay SBM iyo ina cumar jeesay lahaayeen saddexdoodaas waaye waxaa maaragtay dowladdii dumiyey haddeerna waxay iska soo horjeedaan waa saddexdaas waay bal ilaahu maaragtay ogow inaan maaragtay bahalkii arrintaas ka naseexar bixiyo ilaahay ugu ogaado saddexdii qolo waay saddexdaan qolo oo shalay yacni dowlad bahalkii maxay ahayd 20 jirsatay oo xoogowday soo ma jeedin hilfaa u qaaday waxa weeyaan dowlad 2 jir ama 3 jir ama 4 jir waxa weeyaan walaalow ha isku bacdaadin nimankaan ha isku bacdaadin nimankaan niman sahlan ma aha nimankaan ha isku bacdaadin waxa weeyaan macnaha aniga ilaahay fulayna igama dhigin waxa aan meeshan u geesinimadana waa jeclahay laakiin waa inay meesheeda tahay ama mabda ku tahay ama ay maaragtay raganimo iyo caqli iyo maamul ku tahay waa soo ma jeeda marka waxaa la yidhaahdaa ninkaas hebeli waa ishi yaqaan waa inaad xataa sagaarada lagu yaqaanaa iyo wadnada sagaarada dhigta iyo cawsha iyo ilintaqaan wax la yidhaahay leeda oo xarigga meesha loogu dhigay inay ku ilbaxdo oo ay ka leexato wixii loo dhigayna ay cunto soo ma jeedi sagaarad ka lidata waxa weeyaan marka waa inaad waa in lagu ilintaqaamo waay dadkaanu dad sahlan maaha sideedana ninka dadka sahladaaba sidiisaba waaba doqonba aslan ninka dadka fududaysta kitaabkaagana waa la iiga sheegay aniga ma arkini kitaabkaagana waa la iiga sheegay inaad dadka fududaysatid waa la iiga sheegay hawaana kaa muuqataa haddana dadka inaad fududaysanaysid kaa muuqato dadka ninkii fududaystaa waa ku ceeboobaya soo ma jeedi waxaa marka waxaan dhihi lahaa nimankaanu niman sahlan maahan aad maarta ku taagan tahay waxaad yeeshaa war waxa kan waxa weeye ha ku ceeboobin hadda sharciyana hadda waxa weeye waa kaa dhammaad wax kaloo ku diyaarana malaha marka haddaad maaragtay damacday inaad xoogtidna wadadkaanu waa dadkaas waaye dhagaha fur farmaajo dhagaha fur caqligaagana fur dadkaas waaye waxaan kaloo kugu sii baraarujinaya waxa weeyaan ninku meesha uu joogo waa inuu xidida ku leeyahay meesha uu joogo waa inuu xidida ku leeyahay
waxaan ka wadaa nimankan hawiye ayakana waa nooc gaara waay haddaan nidhaahda maxamed siyaad bare waa la isugu tegi oo hawiye daaroodba waa isugu tageen walaalow cabdullaahi yuusuf ku caqli qaado iyo amxaaro oo amxaaro wata fiiriya cabdullaahi yuusuf oo amxaaro wata waa inaad ku caqli qaadatid waay cabdullaahi yuusuf amxaaro wata oo xamar dabaadaad ku soo galay soo ma jeeda oo daad hawiyana watay weliba soo ma jeeda ku caqli qaado meeshaan maaragtay bahalkii maxay ahayd haddii aadan ku xidida ku lahayn ma joogi kartid mana joogi karan maaragtay dad maaragtay bahalkii maxay ahayd aan maaragtay xidida ku lahayn ma joogi karaan weliba maaragtay bahalkii maxay hadda ayaan dhaweynaa waa ka hadlaya waxa weeyaan nimankani waxa weeye sii jeedkay ku roon yihiin inay kaa sii jeedaanay ku roon yihiin hadday soo jeestaan waa dad xun waay hadday soo jeestaan dad xun waay soo ma jeeda marka waxa weeyaan war waxa ka niyahow baraarug waxaanu ma socon karaan midda waxaanu ma socon karaan waxa weeyaan nimanka saddexdoodiiba hadda kaa soo horjeedaan haddana weliba meeshii raaska ku ed weliba waxaan kuu sheegayaa fiiri maxamed siyaad bare dadka dadow ka wadan jira asaguba ha ku qatalmin asaguba dadka dadow ka wadan jira hawiyaha dadow ku lahaa soo ma jeedi ninka la yidhaahdo cabdiqaasin iyo ninka la yidhaahdo maaragtay galaal iyo rag badan oo ku lahaa oo maaragtay aan caadi ahayn soo ma jeedi marka laakiin waxa weeyaan dadkaanu haddii fitna dhacdo wax ka xun ma jiraan mana kuu joogayaan ninka la yidhaahdo cali maxamed geedi waxuu badbaadin lahaa cabdullaahi yuusuf soo ma jeedi waa ku sharaf sheegaya maxaara anaa keena waa laiga sheegay laakiin cali maxamed geedi iyo salaad jeelle iyo salaad maaragtay waxa weeye waxay kuu tarayeen ma jirto eebaago haddii xabad dhacdona ayaguna safkay gelaayaan runtii aan kuu sheegay haddii xabad dhacdo safkay gelaayaan dadkaanu marka ma ahan dad aad maaragtay bahalkii aad isku halayn kartid ma ahan mid kalena waa kuu sheegi lahayo waxa weeyaan wiilkaan ha iga loogi wiilkaan aniga waxbuu iigu fadhiyaa waxaan sheegaa fahad ninka la yidhaha axmed saleebaan daldafle kamana ciidan ka badna kamana tol badna axmed saleebaan dafle waa taqaani nin walaalkiisu cabdiraxmaan la yidhaahdaan maaragtay aan asbara isku baran oo weliba ururka iyagu jiray waa niman raga waaye tol ragana waa leeyihin laakiin waxba ma badbaadin karin sababta waxa weeyaan booskiina ma joogaan soo ma jeedid weliba waxaan kusii sheegaya weligaaba ciidama ka keen ciidan mad ka dagaalami kara meeluusan dad ku lahayn haddaba waa ku sheegaya mithaalna waa ku siinaya maalintii xamar xabaddu ka dhacday oo axadda ahayd waxa weeyaan waxaan joogay jili baan joogay maalintii talaadadiyaan ka soo baxa wabilaahi calaya waxa weeyaan waa maalintaan aan yaaboon isir maanta qiyaamihii aan dhacay dadka marka iigu soo hormaray waxay ahaayeen nimankii saraakiisha ahaa oo ahalkoodii wata oo waxa weeyaan inay fogaystaan raba bisuga aniga markaasaan waxaan gartay waxa weeyaan dawlad maanta ka dambaysa inaan dawladu maanta jirin sababta waxa weeye saraakiishii oo dhan waxay wataan ahalkoodii wataan la cararaaya markaasna hadda ciidan weyn oo hadda soo jiiray ma lahayn fiiriya ma dhaweyn waktiga maaragtay dambe oo raggii xataa maaragtay jabhaduhu iyo marka ay imaanayaan oo caydiidii ay imaanayaan ma dhawa waa wax ilmay kuwa xun dhalinyaro ahoo. A difficult and bloody civil war in Somalia
led to the overthrow of the dictator Siad Barre in 1991. Children as young as 8 take part in the fierce and bitter fighting that continues as the powerful clans now battle each other for supremacy. Mogadishu. It doesn't matter if I die, because when I'm dying, I am defending myself and my leader. So if I die, no problem. Go. I believe I will die when Allah my God decides. But if my people need me to defend them, I have no right to be afraid of dying. dhalinyaro ahoo aakayalma kalabiyaal sitay ahaayeen markay magaalada ka dhacday nin walba wuxuu yiri baalki bal horta ahalka fogeyso mar haddaad ahalka fogeysatina soo noqosho male balaayay ka tahay dadka marka maanta jooga haddii xabad dhacdo waxa ugu horeeya ay sameeyaan waa sidii waay waxa ugu horeeya sameeyaan waa sidii waay inay maartay meel ku badbaadaan raadsataan iyo caruurtooda waxaan balaayada niyahu isku kicinine waxa weeyaan meeshaan si wanaagsan oo raganimo leh oo ragii kaaga horeeyay ay uga tageen uga tag ama ku joog oo sidaba waad uga sidii lagu soo dhaweeyay wabillahi calay aniga xataa waxa weeyaan inkastoo hadda aan iska dareemayo dhihi jiray islaamkii waxa lagu kala jabiyay shariifa lagu kala jabiyay حسن والله قد ذكري أن يجري وعلمانيين في دولة لوسو عليا أن إراهضو سو جديد هذا لو حويا وحد إسلها أو ما تبالك محيي بدك شعور كودي يعني لفتي ذيك قبصدي بدك شعور كودي قبصدي وحد يصير أما ما تبالك وحكب الدري كراوي سو جديد ما كساد ده اللي بقول سودوي سيدي مركز هدين لقوا طفو ولا ما تبي واحد مجوي كرتي ما جوي كرت هدي لقوا طفوا خطر واحد